dadka reer muqdisho ka kaca wixiina doorta iska dhaxsha dowladda maxamed saad barke ma xoog badan dowladda hadda joogta hadday gobolka banaadir xuquuqdooda sii waayaan madaxtooyadaan ugu gelaynaa waa ugu gelaynaa weliba runtaan idin sheegayna waa ugu gelaynaa ninaa wuxuu leeyahay 4.5 wax laguma soo xuli karee deegaan waxa lagu soo xulo war 4 milyan iyo bar xuquuqdooda ka tagtay adiga 1 milyan meeshaada kuma noola waxa artida warqadaada artida ii soo qoray miya aniga 4.5 ka at least la og yahay oo way out intii dadka laga tirinaayo oo laga gaarayo afti meesha cabdi baraka allahay oodagii la lahaa maxaad hebel baa la yidhaha maxamed cabdi yuusuf uu yidhi dirira oo ma basasa ka soo diriro hadduu ciidan leeyahy gaaladan la wada dirirna markuu le xamareyka waa hala laayo awal baa huyo far loogu taagnaa nin adeerkaya ayaa hadda ka hor wuxuu yidhi sadkiisi yaa la saarsadee haddaad su-aasho xog suga waa nasiib darro shacbiga soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolka banaadir usoo hoyatay in ay madashii wax lagu qaybsanayay ee jamhuuriyadda soomaaliya ka waayaan xuquuqdii ay lahaayeen inuu magacaabo gobornatoore maalin walba inuu magacaabo maaha intii maxamed siyaad baroon ka dirinay maaha gobolka ekis banaadir maxaa loo kala qaybiyo oo looga dhiga magaciisa marna baydhaban loogu diro barna loogu dhigi dara magaciisa waa ereb daro yacni gobolkan iyuu meesha ka kaceen waddanka aan joogno ingiriiska dowladda ingiriiska way og tahay gobolka banaadir dadka joogo in dhib loo geystay soomaaliya oo dhan waxay dhaheen reer banaadir aanay isku dhiibeen xamar waxa waaye maxaan kuu sheegaa waa loo soo duulay waa la degan yahay marka aqalka sare gobol walba waxaa loogu talagalay 18 gobol inuu 3 xubnood ka timaado oo laga soo doortay marka 450 goboladaas ka imaan lahaayeen haddii la bixiyey maxaa banaadir u soo hara marka aniga xildhibaan boodla ka noqon maayo berbere ka noqon maayo kismaayana ka noqon maayo boosaaso ka noqon maayo gobolka banaadir MB-giisana aniga berrita mid ka imaan doono marka aniga waxaan aaminsanahay inaan sidaan ba xildhibaan ku ahay xaquuqdayda marka inaan doonto waajib waay waxaan leeyahay dadka gobolka banaadir ku dhaqan doraad iyo shalay meeshii laga guuray ayaad beriga joogtaan inaad maanta xuquuqdiinii dadka weydiisanaysaan waa nasiib darro tan waa federaalaha la yidhi inuu ka gaabsaday ahayd uu yidhaahdo war adinku ou toosiyo waxaan arkayaa inuu gobollada qaarkood dhisaayo maxuu u dhisi waaye banaadir inuu dhiso waay bal nin dagaalamaya oo ka dagaalamaya habeenkiina dhalinyaro diraya maalintiina barlamaan ka dagaalamaya ayaa dekadii laga marsuufaya dadkii u dhashay oo deganaa baraandirna ma garanayaan walaal booye oo anigu haddaan war ninkan waa cadowgiin anay la diriraya sharciga indhaha in la istiro maaha aniga maalin walba inaan ku sido ma wada lahaanayno aniga gobolka banaadir aan ku dhashay boosaaso ma aadayo jubbaland uma socdo baydhabo ma rabo jowhar uma jeedo marka iyo afgooyo balcad oo ii dhow ma aadayo laana xaquuq inaanu kulaynaan aaminsana baryo dhowey dadka annaga kicinay waxaan xaq ahayn in la yidhaahdo dowlad dhan dekeda muqdisho waa laga marsuufo iyo airboortka muqdisho dowladdan haddaan wada leenahay muqdisho maa loo wada dhinto maalin walba qarax halkaanu ka dhacayaa jowhar iyo balcad ma jiro kismaayo qarax ma jiro nimanka hoteelada jiifa oo walaalahayna ah labadii ildhood oo hadda lagu shaqaynayay rabaan inay duugaan ma ka yeelayno inay duugaan oo mooshin ay ka keenaan taasna waa ka kacaynaa dagaalaan ka ridaynaa waa ka dagaalamaynaa haddaan nahay dadka baraandir u dhashay bal ninkii laga soo doortay oo baarlamaanka ka yimid oo kismaayo laga soo doortay oo dekadiisii furan tahay oo aan lacag looga keenin ninkii boosaaso ka yimid oo dekeda lahaa oon lacag looga keenin kii berbere ka yimid oon lacag looga keenin ilaahay baan idinku dhaarshay dadkii dhintana allah u naxariisto wixii laga dagaalamana oo rag ka dagaalama oo godob galeenna qalad bay ahayd sababtoo midii hore midka xun baa la gala annaga kulligaa ina dawlad ma raadi karno waan ku soo dhaweynay gobolka inay degan yihiin dawladda joogtaa xaquuqdii dadku lahayne waa ku tumanayaa waa siday u sheegeen oo la qabaa dhaqaalaha yacni nin walba gobolkiisa ha kala yimaado waxaa dembi ka galay gobolka banaadir dadkeedaa dembi ka galay ama baarlamaan ha ku jiro oo xildhibaan ha ahaado ama barasaabyadii guddoomiyahan ka horreeyay ha noqdaan dadkeedaa dembi ka galay meesha la yidhaha muqdisho waa lagu soo duulay waxaa ku soo duulay dagaalkii kadib niman raba inaysan xagga iyo xagga aadin